dowladda Puntland waxay ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba u cadeynaysaa in ay ka soo horjeedo aysan aqoonsan doonin bedelista sharci darrada ah ee lagu sameynayo dastuurka ku-meel gaarka ee federaalka Soomaaliya. 3 xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalka ku matala dowladda Puntland oo intooda badan ay ka soo qayb galeen shirka waxay cadeynayaan inaysan qayb ka ahayn wax ka bedelka sharci darrada ah ee dastuurka ku-meel gaarka ah lagu sameynayo. 4 mudaxileedka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee hadda xilka haya mudane xasan sheekh maxamuud wuxuu ku egyahay 15 May 2026 sida ku cad qodobka 91 ee dastuurka ku-meel gaarka federaalka Soomaaliya. sidoo kale waqtiga labada gole ee baarlamaanka federaalka ayaa sida ku cad qodobka 6aad ee dastuurka ku-meel gaarka federaalka ku eg 14 Abriil 2026. haddaba dowladda Puntland iyo mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka federaalka ku matala Puntland waxay go'aamiyeen in haddii madaxweyne xasan sheekh maxamuud uusan u hoggaansamin in la gaaro heshiis ah sidii ay ku qabsoomi lahayd doorashada golayaasha baarlamaanka iyo madaxweynaha ka hor inta uusan dhammaan mudaxileedka golayaasha baarlamaanka ee ku eg 14 Abriil 2026 ay dowladda Puntland iyada oo qayb ka ah golaha mustaqbalka Soomaaliyeed iyo saamileeda doorashada dalka diyaar u tahay inay ka shaqeyso sidii lagu qaban lahaa doorasho lagu badbaadinayo hanaanka geedi socodka dowladiska dalka laguna xoojinayo midnimada iyo wadajirka dadka iyo dalka loogana hortagayo firaaq dastuuriya iyo qalalaase amni. 5 shirku wuxuu dadka reer Puntland ugu baaqayaa inay adkeeyaan midnimadooda meel uga soo wada jeansadaan sidii loo ciribtiri lahaa argagixisada ay ciidamada geesiyaasha Puntland dagaalka kula jiraan sidoo kalena la isgarab taago dadka ay saameysay abaarta adag ee ka jirta guud ahaan geeyiga Soomaaliya. 6 ugu dambeyntii shirku wuxuu ugu baaqayaa beesha caalamka inay si dhaqso ah u soo farageliso xaaladda cakiran ee siyaasadda federaalka Soomaaliya. wabillahi tawfiiq. Puntland ee Garowe ka qabsoomay shirkii wada tashiga ahaa ee madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdulaahi Deni ku casumay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka ku matala dowladda Puntland. shirka waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland, gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland iyo ku-xigeenkiisa labaad iyo inta badan mudanayaasha ku matala dowladda Puntland labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya sida ku cad lifaaqa warmurtiyeedka. shirka oo ka dhacay madaxtooyada dowladda Puntland ee Garowe ayaa mudanayaasha xildhibaanada qaarkood waxay uga soo qayb galeen hab fogaan arag ah kadib markii shalay hawada laga afduubtay diyaaradii siday dibna loogu celiyay magaalada Muqdisho. saakay oo ay mar kale ku soo safri lahaayeen diyaarad khaas ahna lagu sameeyay is-hortaag. shirka waxaa si qoto dheer looga hadlay xaaladda ka sii daraysa ee dalka Soomaaliya gaar ahaan in madaxweynaha waqtigiisu sii dhamaanaya mudane xasan sheekh maxamuud uu si keligi talisnimo ah u burburiyay awoodii sumcaddii iyo sharafta golayaasha baarlamaanka federaalka uuna si mas'uuliyad darro ah ugu tagrifalayo awoodda xafiiskiisa isla markaasna burburinayo hanaanka federaalka dalka isagoo ku howlan inuu si hal dhinac ah oo aan waafaqsanayn habraaca wax ka bedelka dastuurka uu ku bedelo dastuurka ku-meel gaarka ah ee 2012 kuna dhaqmin qawaaniinta federaalka ee labada heer ee dowladnimada sida ku cad dastuurka ku-meel gaarka ee federaalka Soomaaliya qodobadiisa 48aad 50aad 51aad iyo 54aad. madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu sidoo kale faragelin ku hayaa awoodaha fulinta dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah isagoo doonaya in ay doorashada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya lagu qabto guddi iyo xeerar aan la isku waafaqsanayn arrintaas oo ka hor imaanaysa sida uu qabo qodobka 120aad ee dastuurka ku-meel gaarka federaalka Soomaaliya iyo dastuurada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya. go'aanada shirka wada tashiga. 1 shirku wuxuu si adag u cambaaraynayaa faldambiyeedkii shalay oo taariikhdu ahayd 1 Maarso 2026 uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud hawada kaga afduubtay diyaarad siday xildhibaano labada aqal ee federaalka Soomaaliya ku matala dowladda Puntland iyo rakaab kale oo muwaadiniin Soomaaliyeed ah iyo ficilkii la midka ahaa ee 1 Febraayo 2026 hawada garoonka Muqdisho dib looga soo celiyay
diyaarad waday ciidan iyo mas-uuliyiin hordhac u ahaa wafdiga madaxweynaha dowladda puntland oo ka qaybgeli lahaa shirkii wakhtigaas lagu ballansanaa inuu ka dhaco magaalada muqdisho. shirka waxa uu caddaatay in amarada celinta iyo afduubka diyaaradaha uu lahaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud uuna qaatay go-aan isku day dil xildhibaano leh xasaanad saraakiil amni iyo muwaadiniin rakaab ah uuna jebiyey qodobka 21aad ee dastuurka meelgaarka ee federaalka. sidaa darteed shirku wuxuu go'aamiyey in wakhtiga ugu habboon ay dowladda puntland ka xisaabtanto wixii dhacay iyada oo u maraysa sifo waafaqsan dastuurka iyo qawaaniinta puntland, dastuurka ku-meelgaarka ee federaalka 2012 iyo qawaaniinta caalamiga ah ee xuquuqda socdaalka iyo kuwa faldambiyeedka dilalka ah. qodobka labaad, dowladda puntland waxay ummadda soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba u caddaynaysaa in ay ka soo horjeedo aysanna aqoonsan doonin bedelista sharci darrada ah ee lagu sameynayo dastuurka ku-meelgaarka ee federaalka soomaaliya. 3, xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalka ku matala dowladda puntland oo intooda badan ay ka soo qaybgaleen shirka waxay caddaynayaan inaysan qayb ka ahayn wax ka beddelka sharci darrada ah ee dastuurka ku-meelgaarka ah lagu sameynayo. 4, muddaxileedka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee hadda xilka haya mudane xasan sheekh maxamuud wuxuu ku egyahay 15 May 2026 sida ku cad qodobka 91aad ee dastuurka ku-meelgaarka federaalka soomaaliya. sidoo kale wakhtiga labada gole ee baarlamaanka federaalka ayaa sida ku cad qodobka 60aad ee dastuurka ku-meelgaarka federaalka ku eg 14 Abriil 2026. haddaba dowladda puntland iyo mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka federaalka ku matala puntland waxay go'aamiyeen in haddii madaxweyne xasan sheekh maxamuud uusan u hoggaansamin in la gaaro heshiis ah sidii ay ku qabsoomi lahayd doorashada golayaasha baarlamaanka iyo madaxweynaha ka hor inta uusan dhammaan muddaxileedka golayaasha baarlamaanka ee ku eg 14 Abriil 2026 ay dowladda puntland iyada oo qayb ka ah golaha mustaqbalka soomaaliyeed iyo saamileeda doorashada dalka diyaar u tahay inay ka shaqayso sidii lagu qaban lahaa doorasho lagu badbaadinayo hanaanka geedi socodka dowladiska dalka laguna xoojinayo midnimada iyo wadajirka dadka iyo dalka loogana hortagayo firaaq dastuuriya iyo qalalaase amni. 5, shirku wuxuu dadka reer puntland ugu baaqayaa inay adkeeyaan midnimadooda meel uga soo wada jeensadaan sidii loo ciribtiri lahaa argagixisada ay ciidamada geesiyaasha puntland dagaalka kula jiraan, sidoo kalena la isgarab taago dadka ay saamaysay abaarta adag ee ka jirta guud ahaan geyiga Soomaaliya. 6, ugu dambeyntii shirku wuxuu ugu baaqayaa beesha caalamka inay si dhaqso ah u soo farageliso xaaladda cakiran ee siyaasadda federaalka Soomaaliya. wabilaahi tawfiiq.